waxa uu isku xiraa badda cas iyo gacanka cadan iyo badweynta hindiya iyo badda mediteraneanka waana marinbiyood halbowlo u ah isku socodka gaadiidka badda iyo shixnadaha ganacsi ee dunida hase yeeshee 4 bilood ee lasoo dhaafay waxaa gacanka baabalmandab iyo badda casba hadheeyey qalalaase kadib markii xootiyiinta oo maamula qaybo badan oo ka mid ah yeman oo ay ku jirto caasimadda sanca ay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan maraakiibta u socota israa'il iyagoo tallaabadaasina garab istaag ugu muujinaya falastiiniyiinta khaza ayaa dagaal ba'an uu ka socday wixii ka dambeeyey weerarkii ururka xamaas ay ku qaaday koonfurta israa'il 7 bishii oktoobar 2023 weerarkaasi oo saraakiisha israa'iil ay sheegeen inay ku dhinteen in ka badan 1,100 qof halka in ka badan 200 oo qofna lagu afduubay israa'iil ayaa weerarka xamaas kaga jawaabtay weerar ay iyaduna ku qaaday khaza oo ay ka taliyaan ururka xamaas oo maraykanka iyo waddamo reer galbeed ah ay ku dareen liiska ururada argagixisada ah falastiiniyiintu waxay sheegeen in weerarka israa'iil ay ka wada khaza ay ku dhinteen in ka badan 34,000 oo qof deegaankaasina uu ku burburay haddaba xiisadda ka taagan badda cas ee xiriirka la leh dagaalka khaza waxay carqaladaysay ganacsigii isaga gooshiyey dunida waxaa intaasi dheer cabsi laga qabo in dagaalka khaza darteed ay colaaddu ku fido waddamo kale oo ku yaalla khaliijka cabsidaasina waxay sii xoogaysatay dhowaan kadib markii weeraro ay isweydaarsadeen waddamada israa'il iyo iiraan haddaba sida colaadahan iyo carqaladaha ganacsi ee badda cas iyo cabsida khaliijka ee u saamaysay ganacsiga imanaya soomaaliya iyo geeska afrika waxaa galka baarista uga warramay cabdirasaaq cali macalin cumar oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ee ku sugan dubay madaxna ka ah shirkadda lagu magacaabo muqdisho shipping and cargo oo ka shaqaysa howlaha maraakiibta iyo lojistikada iyo badeecooyinka u socda soomaaliya suudaan kenya iyo tanzaniya marka laga soo bilaabo markii ay dhaceen tensinkii badda cas ee xootiyiintu ay faragelin ku sameeyeen maraakiib badda cas maraysay annaga wuxuu nagu yeeshay saamayn toos ah oo laakiin xagga qiimaha ah saamayn xagga wax dhibaato ah oo ganacsiga soomaalida intaan ka warqabo soo gaaray oo arrintaas kasoo gaaray ma jirin laakiin waxaa aada isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareliya freydka ama nooliga maraakiibtu ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga afrika ku yaala gaar ahaan soomaaliya iyo kenya waxaan xusi karaa qiyaastii 100% ayuu kordhay freydka halkii konteenar lagu qaado markii ay badda cas ay soo baxday arrinta la xiriirtay faragelinta ay xootiyiintu ku sameeyeen maraakiibta badda cas maraysa laakiin waxaan kuu sheegi karaa wax intaan ogahay xoogaana oo ahay wax maraakiib ah oo dhibaato ay kasoo gaartay ama la qabsaday ama dhib ku dhacay ma jirin saamaynta markay nagu yeelatay waxay ahayd qiimaha freydka ayaa aada u kacay waxay kaloo yeelatay badeecooyin badan oo soomaalidu ay kasoo iibsan jireen dalalka sacuudi carabiya oo weliba qaarkood warshadaha soo saara biyaha iyo ay aada ugu xirnaayeen ayaa iyaduna joogsaday oo shirkadihii ay markii qiimihii kacay iska daayeen inay soo raraan marka barayska badeecadana waa ku yeelatay xagga rarkana waa ku yeelatay badeecooyinka baabalmandab soo mari lahaa oo gaar ahaan sacuudi carabiya ka imaan lahaa laakiin badeecooyinka soomaaliya taga ee imaaraadka ka baxa sharikadaha qaar oo ka maarmay badda cas transit timekoodu ma dheeraan laakiin wadamada kale wixii ka imaanaya turkiga ay kamid tahay masar ay kamid tahay sacuudi carabiya hadday ku imaan jireen 45 maalmood waxay gaareen 90 maalmood inay ka maqnaadaan dekedda muqdisho iyo mombasa marka saamayntaas labada nooc xagga waqtiga iyo xagga lacagta ayay nagu yeelatay turkigaad xustay turkiga maxaa uga yimaada soomaaliya haddii ay soo mari jireen badda cas baabalmandab hadda halkee south africa ka soo wareegaan waxaad tiri waqtigii uu ku imanayay waa kordhay maxaa ka yimaada turkiga sideedaba turkiga intii dambe sanadahan oo Soomaaliya saaxiibka la ahaa waxaa jirtay badeecooyin badan oo waagan aan turkiga laga iibsan jirin ayaa laga iibsadaa waxaana kamid ah burka waxaa kamid ah baastada ugu badan ee Soomaalidu hadda cunto waxay ka timaadaa dalka turkiga waxaa ka yimaada noocyo kala duwan oo raashin la cunaa waxaa ka timaada birta dhismaha waxaa ka timaada badeecooyin badan ka yimaado qalabka dhismuhu ka mid yahay ay ka mid yihiin bagaashka iyo shukulaatooyinka waxaa ka mid ah daawooyin ka yimaada badeeco aad u badan oo shifti xoog leh u sameysay badeecooyin badan oo waagi hore Hindiya iyo dalal kale ka imaan jiray had sanadahan Turkiga ka imaata oo raashinku u badan yahay marka ayagu maridu shiibinada iyo qaadka isticmaalaan horta way kala duwan tahay laakiin waqtiga ay ku imaan jireen ayaa dheeraaday waxayna u muuqataa inay ka leexdeen meeshii soo mari jireen
cabdirasaaq cali macalin cumar madaxa shirkadda muqdisho shipping and cargo ayaan weydiiyey dhaawaca soo gaari kara ganacsiga soomaalida haddii xiisadda ka jirta khaliijka ay isku rogto mid xirta gacanka kale ee muhiimka ah ee lagu magacaabo hormuus. haddii dhibaatadaas ay dhacdo waxaa la oran karaa horta waddankan imaaraadku lacagta soomaaliya laga soo diro maadaama xawaaladaha ugu waaweyn halkan degan uu hab u yahay oo badanaa waxaa jira lacagaha ganacsiga xataa loo wado China iyo wadamadii aan soo sheegnay waxay soo maraan dalkan marka joogitaanka ugu muhiimsan hadda shirkado badan halkan u joogaan waxa waaye transitka lacagaha aad u dhib yar maalintii 5 daqiiqo ka hor inta laga soo diro Muqdisho uu qofku halkan ka qaadan karo marka haddii khalaas yimaado saameyn horta dhinacaas socodka lacagaha iyo joogidii dadka waa ku yeelan karaa wuxuu kaloo ku yeelan karaa hadeertaan waxaa jira badeecad badan oo Soomaalidu ay Iiraan kasoo iibsato oo iyaguna hadeertaan maantaydaas ka bilowday in dadku ay ka walwalaan in la heli karo iyo in kale oo iyaguna inay joogsadaan laga yaabaa marka saameyn noocaas ah ku yeelan karaa. maxaa ka mid ah badeecadda Iiraan laga soo degsado? waxaa ka mid ah nuucyada ka mid ah baastooyinka dheedheer baasleerta liyaado waxaa ka mid ah laamiyada lagu daamurka ama laamiga lagu dhiso jidadka waxaa ka mid ah mutuleelka la isticmaalo dhismaha qalabka dhismaha la isku oran karaa badeecooyin saas ah jira oo Iiraan laga soo iibiyo waxaa kaloo jirta ganacsi aan aad u badnayn laakiin ay Soomaalidu u dhoofisay ay ka mid tahay liinta qallalan dry lemon ka liiraado oo ay iyaguna halkan imaaraadka inta la keeno ka qaadan jireen laakiin aan toos looga dhoofin from Somalia to Iran laakiin halkan ay dib uga qaataan oo doomadu qaadaan. colaad ku baahda khaliijka badeecooyinka ay saameyn karto waxaa ka mid ah cuntada oo inteeda badan Soomaaliya ay dibadda ka soo dejisato iyo shidaalka oo ka yimaada bariga dhexe. mid ka mid ah ganacsatada waaweyn ee soo dejiya shidaalka waa Cabdiraxmaan Cali Axmed agaasimaha shirkadda Haas Petroleum. dalkeed ma leeyahay dalku khaasatan hadda meeshan gobolka Banaadir waxaa ka dhisan laba kayd oo aad u waaweyn mid waxaa leeyahay Somali Fuel Company midna waxaa Petroleum taqriiban ilaa way qaadaan marka la isu geeyo ilaa 200 oo kun oo tan way qaadaan marka waa jira storage waa jira waa dhisan yahay dadaalka ganacsatada wadaan runtii waa la jaan qaadeen adduunku way ku dadaalayaan marka wuu jira storage waa jira. haddii ganacsigu uu carqalad galo ama xiisada ka dhacdo khaliijka ama meelaha Soomaaliya wax uga yimaadaan kaydkaas intee leeg buu hayn karaa waddanka? waxaan isleeyahay ilaahay marka daran laakiin waxaan isleeyahay taqriiban 6 bilood oo hayn karaa. marka qalalaasaan hadda ka jira badda cas iyo ka laga cabsi qaba khaliijka ma saameeyeen qiimihii shidaalka sicir barar ma dhacay bal faahfaahay qodobkaas. saameyn badan hadda weli maanaan yeelan oo waa saameyn yar buu yeeshay runtii aan badnayn waa si xaqiiq haddii dagaalkan sii cuslaado waa xidhmaysaa waddada waa wanta arrintaas hadda xidhanta tankaasina markiiba saameyn buu kugu yeelanayaa oo qiimihii shidaalka mar hadduusan soo gelin uu kacaya uu saameynaya saameyn waa yeelanayaa dalalku ugu badan oo yeelanaya kamid noqon kamid shidaalku wuxuu ka yimaadaa Dubai iyo wuxuu ka yimaadaa Oman marka waa dariiqa yagii labadaba. wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhowaan wareysi siiyay idaacadda VOA ayaa xaqiijiyay culayska dhaqaale ee ka soo kordhay xiisadaha jira hase yeeshee waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho sanadkan. culaysyada caalamka ka dhacaya ay ka mid yihiin ka taagan badda cas saameyn taban oo dhaqaale ay guud ahaan dunida iyo Soomaaliyaba ku yeeshay hadday tahay waxaa kor u kacay maadaama maraakiibtii soo mari jiray marinka Baabalmandab ay hadda tahay inay ka soo wareegaan meesha loo yaqaano Cape of Good Hope oo ku taala South Africa xilligii safarka ama muddadii safarka ee maciishada imanaysa Soomaaliya waliba meelahaas waliba qaybaha waqooyiga iyo culays weyn bay runtii ku keentay oo waxa kor u kacay kharashka lagu soo rarayo waxa sidoo kale kor u kacay kharashaadka caymiska la xiriira maadaama amnigu meeshaas culays ka yimi culaysyadaasi marka waxa ka horeeyay dekii Ukraine oo isna sixirka maciishada iyo qutul daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay
waxaa iyana culaysyada kale jira ka mid ah dee isbeddelkan cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya. laakiin sida kale dawladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa 8 bilood u dambeeyay waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 25%, taasoo noo sahashay inaanu mushaaraadka ka bixin karno gudaha. Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay leeyihiin hal-abuur ganacsi. Ganacsiguna waxa uu kaalinta koowaad kaga jiraa dhaqaalaha Soomaaliya haddii ay noqon lahayd shaqo abuurista iyo maalgashigaba. Professor Ciise Maxamuud Xalane waa agaasime xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya, isla markaana waxa uu yahay madaxa arrimaha dibadda ee rugta ganacsiga. sideedaba nolosha markii la sheegayo asalkeeda ama falsafadeeda la fiirinayo waxay markasta ku habboontahay wadajir iyo sharci. xaqiiqatan markaad fiirisid ganacsiga Soomaalida ee gaarka loo leeyahay wuxuu ahay mid inteeda badan dagaaladii kadib ay keentay baahiyahaas marka sidii u buuxinayeen waxay timid inay la qabsadaan oo ajaanibta badan xisiisa Soomaaliya ugu magac daran resilience Soomaalida inay u leeyihiin dhinacaas macna dabar adeeg dhinaca ganacsiga oo hal-abuurkeeda iyo ajaanibta macna isku wada raacay marka xataa dibadda u qaxeen. maadaama ku bilowday waxyaabahan la dhaho de facto oo baahidaas keentay oo sharciga uusan jirin, taas waxay dhashay in xaqiiqda experience fara badan laga helo, khibrad fara badan laga helo, lagu soo koro muddo lagu soo moodo. alxamdulillah ilaa iyo 12 termka hore ee maxaan ku dhahaa madaxweyne xasan laga bilaabo ilaa iyo hadda u soo noqonayo 3 term markaad fiirisid waxyaabaha runtii ku soo kordha waxay ahayd jaanibka sharciyada oo runtii dowladnimada hoos imaanaysay oo kadib from de facto ay isku bedelaysay de jure sharciyad. marka waad arkaysa isbedelka uu isla la qabsiga sharciyada ganacsiga Soomaaliya la qabsanayo horumar weyn keena. taas waxay keentay credibility ama kalsoonidii ay ku lahaayeen ajaanibta ila ganacsanayeen ay helaan. sababtoo markii ugu horeysay ay kaligood iska socdeen dowlad la'aanta ahayd waa laga faa'iideysan jiray, laakiin hadda waxaad arkaysaa in ganacsiga Soomaaliya uu u dhow yahay ama qaarkood uu yahay made in Somalia oo sidoo loo dhoofiyo. taas marka hore waxyaabahan ku dhuminayna waxaa ka mid ahay trade balance fara badan aan ku dhuminayna sababtoo ah travel documentiga ay wateen Soomaalida ama jawaasida iyo macna ku safrayeen inay ahaan jawaasiyo macna ajnabi ah. sharciyada markaan ku noqdo waxyaabaha ugu waaweyn oo hoosta laga xariiqi karo waxaa ka mid ah in macna dowladdan ay samaysay wax la dhaho tayo dhowr oo runtii ah siilinka ugu weyn ee sharciyada weynaynayo horumarka ganacsiga in waxa ay ka yimaadaan wadan sharciyeysan oo hufan oo raadraac leh oo gadaal loo celin karo macna la fiirin karo raadkiisa. mas-uuliyiinta rugta ganacsigu waxay qireen in xiisadaha jira ay saameyn ku yeesheen ganacsiga Soomaalida, hase yeeshee waxay saadaalinayaan in ganacsiga Soomaalidu uu dhabar adeeg muujin doono. Professor Ciise Maxamuud Xalane ku-xigeenka agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in culays u weyn sidii la filayay aanu la soo dirsin ganacsiga Soomaalida. runtii markaad fiirisid waxyaabaha runtii ilaahay mahadiisa waxaa ka mid ah calaamadaha lagu sheego ganacsiga gaarka loo leeyahay bilowgiisa kobciisa iyo hadda meesha u maraayo waa dhabar adayga ay u leeyihiin. caqabadan markaad fiirisidna maaha waa caqabad oo anaga naga baxsan. weligeedna ayaan waxaa jirta dad xasuusatid la yareeyey xawaalada Soomaalida markaad fiirisid markay meel ka xiranta meel u bay furtaan alxamdulillah oo waa dad markasta hal raadisa. caqabadan markaad fiirisid runtii ma nagu yeelatay saameyn laakiin ma la qabsanaynaa oo ma ka hortagaynaa sidoo kale markaad fiirisid anaga markaad fiirisid xooga waxyaabahan anaga importation aan samayno runtii aad u xoog badan waxaa naga yimaadaan China iyo Dubai Carabaha. labadaas markaad fiirisid saameyn fara badan oo baabul mandel ma laha. waxaa bilowda oo xawaare xoog la ku socdayo aad u kobcayo runtii maanta miisaankeeda ay leedahay waayihii ugu dambeysay ugu dambeeyay 10 sano ugu dambeysay in sidoo kale Soomaalida ay xooga saarayeen dhinaca Turkida wax nooga yimaado iyo Masaarida.
iyo Yurubta kaleeto waxyaabo aad u yar laakiin marka wax eego labadaas wadan xooggan oo dhinaca dhoofinta la soo dhoofiyo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyaa runtii dhaawacyadaas waa dhaawacyo jiro laakiin iyada laftirkeeda alxamdulillah waxaa malaysaa inay mararka qaarkood ay soo marayaan Atlantic ay soo marayaan South Africa ay soo gaarayaan saas ku imaanayaan oo runtii culayskeeda hadday noqoto waqtigii ay ku imaan jireen oo normal ay ku imaan jireen ilaa 45 hadda laga yaabo inay noqdeen ilaa 90 maalmood ay noqonayso طبعا wareegaas uu wareegayo shixnadaas oo wado maxaan ku dhahaa markabkaas sidoo kale ay kordhayso in jidkaas uu marayo dheer in miisaan dhaqaale uu macna zaid ku noqonayo laakiin reality markaad fiiriso xaqiiqda markaad fiiriso wax runtii nolol maalmeedka xoog badan oo laga dareemayo magaalada Xamar waa la qabsadeen mararka qaarkoodna Canal Suez qaara ku soo dhunto soo maro oo nidaam ku yimaado ayagoo badqabkooda alxamdulillah ku yimaado ilaa haddana ma maqal wax shil ah oo ka dhacay linerska sidii u bilaabmeen oo xoogooda markaad fiirisidna runtii waa horumarada anaga aan dhihi karna alxamdulillah oo tooska ah macnaa wadankii wax soo dhoofinaya ilaa iyo dekada Xamar waa laga yaabaa transit inuu soo maro laakiin inay toos nagu yimaadaan in caqabadaha marka hadda adiga aad sheegaysid runtii aniga kaligeen xaqiiqda markaad fiirisid xoogeeda wuxuu ku dhacaa inkastoo marinkaas la dhaho ilaa 2% waxaan rabaa 15 inuu yahay midka caalamiga ah inuu maro oo hakadkaas galay laakiin haddana alxamdulillah sida xooga macnaha dadka ugu maleeyaan nooguma dhicin laakiin way jirtaa saameyntaas ganacsiga Soomaalidu waxa uu intiisa badan si weyn uga muuqdaa wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika kuwaasoo ay Soomaalidu ku leeyihiin meherado kala duwan oo isugu jira dhoofinta iyo soo dejinta gaadiidka iyo teknoolajiyada Cabdiraxmaan Cali Axmed agaasimaha shirkadda Haas Petroleum waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka shaqaysata meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika runtii ganacsatada haddaan si guud u iraaho Afrika hadda ganacsatada Soomaaliyeed ee joogta waxaan leeyahay meelaha ay marayaan yani ganacsiga Afrika marka la isku daro 40% kama yarin ganacsatada Soomaaliyeed levelka ay ka marayso si guudba dad ganacsi bay noqdeen Soomaalidu civil warka wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay u dhaqaaqday ama Afrika ha noqoto ama Carabaha ha noqoto ama wadamada joogtaan ee qurbaha ha noqoto Soomaalidu waxay u dhaqaaqeen maadaama shaqadii dawladda iyo hanaankii dawladnimo wax badan ka yaraadeen dadku waxay u dhaqaaqeen xagga ganacsiga dalka gudihiisa marka soo noqdo marka anagu 2008 baan soo galay dalka xaqiiqatan isbedelka iyo sida uu socdo iyo sida ganacsigu u socdo xawli buu ku socdaa haddii dhibaatooyinka caqabadeed ee hortaagan ama dawladda dhibkeeda xukuumad la'aanta keenaysa ha noqoto oo isku xirnaantii dawladdu inalfilaahiya sidii la rabay ma wada aha kontarooladan isbaarooyinku waa badan yihiin oo damage bay u geynayaan oo ganacsiga waxyaalaha dhaawacay ka mid tahay laakiin Soomaalidu haddii nabad yar oo kaamila oo salle loo helo waxaan leeyahay Afrikada inaga horumartay waa ka horumarsan hadda ma ka horumarsan laakiin way si aan caadi ahaan bay u korayaan marka ganacsigu dadku marka la yiraahdo populationka Soomaalida waxaan is oran karaa yani 40% ganacsatada dadku noqdeen haddaan shaqo badnayn ku beeritaanka EAC East African Community Soomaaliya ku beertay iyo seed u aragtaan idinka ganacsataan maadaama Afrikana aad ka shaqaysid meelo ka baxsan Soomaaliya ninka wax weyn bay taraysaa inay wax tartamo wax ka hadlayn mayso waayo shuruucdii aan Afrikada hadda ganacsiga u badan waxaan ku yiri Soomaalida oo Soomaaliya ay ku jirtay ee suuq madow iyo garab iyo orod bay laga hayday haddii hadda si sharciyana ay u ganacsadaan oo wuxuu inay wax ku helaan mooyee wax uga hadlaayo maayaan marka waxaan u arkaa waa chance weyn oo ummadda Soomaalida u soo leexday waayo waan ka ganacsi badanahay dalka jooga hadda marka dab loo eego si dhab marka loo eego ganacsatada Soomaaliyeed baa ka badan ganacsatada kale marka yaa faa'iidaya waxa faa'iidaya u badan waa inaga dadkeena shaqo bay ka helayaan xuquuq bay ku yeelanayaan waxtar weyn baa ku jira isku biirka lagu beerayo dhulka waa la kala leeyahay laakiin awalba tijaaro waa u joogan oo ganacsiga Soomaalidu meelaha ugu badan bay ku jirtay laakiin silic iyo culays iyo rafaad baa saarnaa intuu may ka dhigaysaa uma arkayna negative tahay positive
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin internetka telefoonada biyaha iyo bankiyada waxa uu sheegay madaxweynuhu in wixii waajibaad ah ee lagu leeyahay shirkadaha ganacsiga ay tahay inay bixiyaan gaar ahaana canshuuraha barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa Haruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo